السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo macallin Maxamuud cashkan waxaanu ku arki doonaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad waxa loo aqriyaa vessel yes vessel waa markab ship yes the vessel crossed the sea markab wuxuu gudbay ama gooyay badda vessel sometimes waxa loo isticmaalaa container just wallon yes water is in the vessel biyaha waalkay ku jiraan marka vessel waxa ugu caansan in loo isticmaalo markab ship ereyga labaad voyage waa safar badda ama safar biyaha marka qofka uu safar dhulka galo journey travel trek trip tour expedition dhamaantood aan isticmaali karnaa safar hawada ahaan waxa la yiraahdaa flight laakiin safarka biyaha waxa la yiraahdaa voyage the voyage took many days safarka biyaha aynu galnay maalmo aad u badan ereyga saddexaad sorry wanda qofku waa inuu iska dhaqaaqo isagoon meel cayiman ama qorshe ku soconin kaliya markaas iska dhaqaaqday meel iska aadid ee lagu baxsi ahaato ama aad iska soo wareegtid taas ayaa la yiraahdaa wanda the child wandered off anigu waa iska dhaqaaqa yes ereyga afraad warrior waxa la yiraahdaa qof halyeey ah geesi ah dagaalam yes somebody who is a brave fighter halyeey ah geesi ah hero ah ayaa la yiraahdaa warrior ereyga shanaad wheat waa qamadi caadiga ah ee taqaanay ayaa la yiraahdaa wheat burka laga sameeyaa roodhiga laga sameeyo xeelano noocaas ereyga lixaad widow waxa la yiraahdaa gabadha uu ninkeeda ka dhinto yes armal bay Soomaalida dhahdaba u mareen bal ma hubo inoo soo xaqiijiyo widow waxa la yiraahdaa gabadha laga dhinto she became a widow last year iyadu waxa laga dhintay oo widow ay noqotay sanadka la soo dhaaf yes ereyga toddobaad wizard waxa la yiraahdaa qof sixiro ah yes wizard the wizard helped the boy sixirowga wuxuu caawiyay wiilka sixiro waxa kale la yiraahdaa magician wizard waa dhig kartaa ereyga siddeedaad worm waa tixri caadi ah yes mama waxa jirta dhaysay the early bird catches the worm yes marka worm waa tixri ereyga sagaalaad shed waxa la yiraahdaa qol yar oo wax lagu kaydsado kaas ayaa la yiraahdaa storage room ama shed he built a small shed wuxuu dhisay guri yar oo kayd ah erey kale waxa jira shed isagan loo dhawaaqo oo ah shade oo shed ah kaas waa hooska caadiga ah qoraxda marka ku qabato aad hooska bixinaysid ama geed hooskii ama guri hooskii ama bir hooskeed hooskaas la yiraahdaa shed balse hadda midka meesha noo saaran shed waxa loo isticmaalaa yani guri yar oo banaanka lagu dhiso yani booska gudihiisa baa lagu dhisaa deedna waxa loogu talagalay in wax lagu kaydiyo ereyga tobanaad u dambeeyo pest waxa la yiraahdaa wax markaysan biyo ahayn yani markaysan dareere ahayn adkana ahayn yes way yar adag they are thick yes pest for example toothpaste waa mid lagu cadaysto waa thick pest sometimes waxa loo isticmaalaa sida maxay ahayd glue ama sida bahashaas isheeg magaceedu ay kambiyay bal xaajis waraqa markii la isku dhijinayo la isticmaalo oo la isku dhijiyo koolo okay glue aydan pest waa loo isticmaali karaa cashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye bye